dumarka marka ay dhalaan waxa hooyada markaasi loogu qubeeyaa dhir mindaawaad ah oo cuntooyin markaasi si gaar ah loo siinayo waxaana ay aaminsan yihiin in arrintani ay farxad gelinayso hooyada sidoo kalena ay caawinayso in ay jirkeedu uu ka soo kabto dhalmada Aisha Afrax ayaa faahfaahinaysa waa dumar ka soo jeeda gobolka Oromiya ee Itoobiya oo guranaya dhir mindaawaad ah waxay isugu yimaadeen inay u gurmadaan hooyo 5 maalmood ka hor ilmo dhashay markay dumarku umalaan jirkooda wuu liitaa laakiin marka loogu meero daawooyin dhaqameedka jirkooda wuu soo kabsadaa haddii ay daciif tahay way ku adkaanaysaa inay nuujiso oo ay hayso cunugeeda marka ay si dhaqso ah ku soo kabsato laakiin cunugeeda caano ku filan ayuu jirkeeda soo saarayaa alle bari ayaa loo sameeyaa oo lagu duceeyaa hooyada iyo cunuga cusub marqa ama mushaari ayaa loo kariyay umusha aad ayaan u faraxsanahay inay sidaan iigu soo gurmadeen 9 bilood oo aan uur lahaa kadib sidoo kale waxay naga caawinaysaa inaan dhaqankeena aan ku dhegnaano taageerada hooyooyinka loo fidiya intanuun kuma eka amma gaafasiin dumarka ayaa caawinaya ilaa ay 40 ka baxdo gargaaruna jeedo jaanta ciyaartaasi iyo dharka iyo waliba luubaadinta iyo markaad eegto dhaqankii Soomaalida buu ku soo xasuusinaya waa hagaag hadii aan mar kale dib idin xasuusiyo qodobada wararka caawa ugu waaweyn waxa kamid ahaa jiida